hadda ninka waxa yiri ninka aad dilin oo fafakkeentida astaafsid oo tiraado ninkan naftarkaasba u sheeg falkaas tiraado ninkan uu dhimanaya adna waa dhimanaysaa buuri maana dad ba kala socdaada arkayn ay fahansanin xilligaas uu yiri bahashaas qaado falkaas ninkan waa joo hadda masaa'idka dhaxdiisa gashida ku soo weydid waa waxa lagu haysto lugu yara laamiga kaga soo dhacay laamiga markaan ka soo dhacay soo leeyahay masaa'idka aan soo aaday ninka oo dad la socdo baan arkay oo masaa'idka soo baxay habad baan qabsi madax habad baan qabsi waa array waayahay baan niri gudoomiye la igu sheegay asna waa u sheegay salaad waayahay buu yiri hawshii buu galay laba habeen baan kala tusay masaajid ku tusay habeenkii saddexaad hawshii baa la fuliyay ani asagaan ahayn waa tusay hawshii baa fulinay ka bacdina ishii baa laga baxay meeshii buu ku dilay inta ku dhacday Abdulqaadir Maxamed inta xabo ku dhacday laba xabo dambi inaan galay waa cadahay oon xalaal ahayn oo nijaaso xaraan ah dawladda Puntland ayada gacanteeda ku jiraan wax walba iyada awoodaada anigu dalabkeegi sida iyadu jeceshay qofka dambi galay dambigiisa lagu fuliyo kii aan dambi galin dambigiisa la daayo asna baan ka codsanayaani yaa Salaad Abdullaahi Cabdi waxaan ka dhashtay magaalada Baydhabo meel u jidho 25 kilomitir leeyahay Gofguud gaar ahaan tuulada Alayum baan ka dhashtay gaarka ay waxaan ku noolahay adiga laxsano hata aan joogo iyo 2 sano ka horeysay mar joogaan ka laabtay oo taasi aabay aadi hadda waxaan ku noolahay 6 sano oo aadi ah waxaan ka shaqayn jiray aska maali baa askaha mar gaariyaal la soo jiray marka hata u dambeysana waxa ka shaqaynay dhigax qof dhigax la oo dhigax dhismada ka shaqeeyo oo dhigax ka qaraabta aha say dhigax u qaraabinay baan waxaan bartay nin la yiraahdo goobe 2022 baan bartay bishi koowaad goobe saa ula shaqaynay shaqaalnimo kala shaqaynay fundiyuha asi ani shaqaala aha maalin buu hadal buu ii dhiibay hadalkaas oo ah shabaabnimo buu ii dhiibi jiray oo ii jiray salaado arinta aan ka dhex jirno aan ka shaqaysaneen waa dhigaana waa nacfiyaasi leeyahay malahan aan buu aan ka shaqeeyay laakiin shaqo kale khaas ah aan leeyahay baa jidh ee kala shaqayso oo maxay tahay waa weydii waa iga jawaabay shabaab baan ahay bishii la baan qaataa riga igala shaqeeya dhigaasna waan ka shaqaystaa mana la dareemo adna aniga iga mid tahay weeri geeskayga igala shaqayso anba kullu mid baahay mana lagu dareemay misheerkaan waa saqaanaysaa geeskaad kalena dhigaana waa iska wadanaysaa waxa la ogaanay aad tuuta u qaadanaysid maalin walba hub aad wadaysid ma ahan weeri igala qaraabo $50 buusiyay yiri orod ka soo danayso marka ka soo danaysatid kadib shaqaan qaaraba rigin waa ku barayaa hadii jarnaatigaadana $50 ma $50 dan baan ku siiyay dad aad leedahay ka soo dhamayso kadib wixii jarnaati aad leedahay iyo wixii meeshii wax ka soo baxay iyo wixii yihiin iyo wax kala diban ka fahansiinaa buu wax walba diban ka fahansiinaa hayeen dhahay $50 aan ka qaad weerinin nabadoon u ahaaday ninkaas uu soo maaqaaday ninkii ii koowaad falki koowaad aan sameeyay oo ninka aan ku dilay oo falki koowaad hadda aan sameeyay oo midkan kaan soo dhaqay oo hubki ii soo dhiibay marab iyo meel mar u dhaxaysa ahayd hubku markii ii soo dhiibay bustarad ii soo dhiibay intii ii soo abay bustarad ii soo dhiibay ninkii wax weeyr waa soo tugtay salaada waa ka soo baxnay maqrabkan isku meel baan ka soo tukunay hadii adaa laga rabaa ina gacantaadi ku baxo ninkaas ma saasaan dhahay haye waan dhahay waa soo labisnaa ku imaanaya meel la yiraahdo agaar weyne baa uu tagay maqrabkii markii la soo tugtay kadib shiine
oo soo dhowday gurigiisii iritiisa istaagnay busteeladu ii abay ba halkaas ku taagtay uu yiri salaam busteeladaas xilligaas habad way ku jirtaa gacantaada kaliya rabtaa buuri taagisteedii masaajidka al-Ma'muur xafad garsoor laanta koowaad hadda ninka wuxuu yiri ninka aad dilin oo fafakkeentida astaafsid oo tiraada ninkan naftarkaasba u sheeg falkaas tiraada ninkan uu dhimanaya adna waa dhimanaysaa buuri maana dad ba kala socdaada arkayn afaansanin xilligaas uu yiri bahashaas qaado falkaas ninkan waa joo hadda masaajidka dhaxdiisa gashida ku soo weydid waa waxa lagu haysto maahan buu yiri waxa lagu haysto maahan ninkii arkay ka soo laabtay hadda istiraadan adaa naftaada ku weynay buu yiri ninkan aan waa dilinaya mar walba ninkii anoo sii socdo masaajidka u sii socdo masaajidkii ba anoo galin masaajidka laab buu leeyahay dhanna geerishka xag ka soo marta wada dhanna laamiga ay ku soo dhacday masaajidka qurax ka soo bax xageedii bay soo martaa mid qurax ka soo bax xageedaan soo maray luuq yara laamiga kaga soo dhacay laamiga markaan ka soo dhacay soo leeyahay aan masaajidka aan soo aaday ninka oo dad la socdo baa arkay oo masaajidka ku soo baxay habad baan qabsiyay habad baan qabsiyay madax habad baan qabsiyay waa array habadaan ka dhuftay mid labaad inaan ku dhacday inaan agmartay ma sheegan waa qarqaraani tii koowaad markaan ku dhuftay tan labaad ani maska fiican mayn waa isku tuuray kaliya laba habaan tuuray sideed inaan ku dhacday inaan agmartay inaan madaxa u dhacday inaan feeraha u dhacday oo loosh u dhacday ma sheegan laakiin tii hore madaxa u dhacday goolkan ii koowa waa mushinkan ii koowa waa shabaabnimo markii aan koowaad aan leedahay shabaab noqo ninkii ii koowaad aan gacanta ku baahan waa ninkan ninkii shabaabnimo magaciisa ii soo qaaday ii soo qaaday oo isku tashkiilay oo professionkeeda lahan goobuwe qof kale ii soo labeeyo oo shabaabnimo igu soo sheego oo ii keeno shabaab noqo idhaho nolosha intii aan noolaa ma arkin ninkii koowaad oo shabaabnimo magaciisa ii soo qaaday goobuwe midkii koowaad aan gacanta aan ku baxon waa ninkan ma ku soo wareegin markii aan la isoo qabtay odayga dhintay ma ku soo wareegin marka 20 cisho ama bil laguma joogo waqti aan la isoo qabtayn bilba ma dhum inta odayga dhintay iyo inta aan gacanta laga soo dhigay oo ciidanka gacanta laga soo dhigay oo ninkiin hadda gacanta laga hayo oo ani falka ii geysto oo aan falka ii dhaxgeliyay oo shabaabnimada ay soo gilay ka horna ma ku jirin kadibna qof kale iliimaan isii kaliya programkaas ii keenay isna waan rabaa inaan xukunka aan leeyahay mid la mid ah la marsiyo kuwa kale isii ka dambeeyaan binaanka la soo saaro dawladda intaas aan qoosanayaa magacayga waa Abuukar Cabdi Abdiraxmaan waxaan ku dhashay Fatadheer waxaana wax ku bartay Qoryooli barashadeedii labaad waxay ahayd marka galkacayna waxaan imid 97 shaqadaydan waxay ahayd fuundi oo la yaqaan goobe ma garatay bisha soon hadda aan soo dhaafnay baa la soo wacay wiilkaagii kan baa leeyahay anigu nin shabaab ah adna shabaabad ku darsamaysaa aw Maxamed Abuukar Nookeen haddaadan noo keenina waad ka maqan tahay waayahay baan yiri hawshii baan galay wiil baan tashkiiliyay waa iga diiday iyo kuwa kale iyagana aan bagaranaynin waa iga diideen ninkan oo shaqaale ii ah baan tashkiiliyay asna wax lacag oo guna baan siiyay asna hawshii baa la galay ma garatay Abdaqani Waloore baa dilaysa baa la yiri waayahay baan yiri gudoomiye la igu sheegay asna waa u sheegay salaad waayahay buu yiri hawshii buu galay laba habeen baan kala tusay masaajid ku tusay habeenkii saddexaad hawshii baa la fuliyay ani asagaan ahayn waa tusay hawshii baa fulinay ka bacdina
ishii baa laga baxay meeshii buu ku dilay bistooladii xaafadda uu dhigay misaayidka macmuur banaankiisa ma garatay bistooladii xaafadda uu dhigay waxa kamid ahaa in ninkan uu qaarijiyo waxa allaala wixii lacag la ii soo diro inaan kala barano ani asaga lacag oo la ii ballan qaaday ma aha 500 400 mid milyan lacag ana ku soo diray kugu filan adiga iyo waqti kula shaqeeyaa la yiri waayahay baan marka asna u sheegay waayahay buu asna hawshii saasan ku galnay hawshii waa ogolaanay way ogolaaday okay qofkii u horeeyay inuu soo sheegay la yiri shaqada ka tabanaysa qofkeen u ahaa ina waloore magacaw abdaqani muxuu ahaa gudoomiye ma taqaanaa abdaqani fahmaan u taqaan hore baan u garanay hore u taqaan xaafad xageed baa jirtay de garsoor ma daris baa ahayd daris ma ahayn laakiin anigu garsoor oo dhan baa aan ka ahay سجن سجن لو تقاني garsoor dhan ka ahay اوكي عبدالغني مدام تقاني بدونيا لو شيغي صلاه سيف عبدالغني يا صلاه عبدالغني سيف صلاه لو هبين بان تصيبان كوري لو هبين وحاجات تصيب مساعد كان كتسي مساعد كيف معمور مساعد معمور حافظيه ولا garsoor اوكي لو هبين عبدالغني صلاه تصيب كدب حقي كدب هوشان على قبتي operation dilka la qabtay yaa la dilay isaga wakuma salaad ninka la dilay wakuma waa abdaqani waloore abdaqani waloore maxaa loo dilay gudoominimo wuxuu loo isticmaalay inta ahaa oo isaga shaqadiisa ahaan waxa uu loo isticmaalay nooca bistoolad bay ahayd bistoolad waxay keentay bistoolad ani isaga naga dhaxaysay oo hore u ahayd salaad oo hore u haysay ani isaga naga dhaxaysay hore baa u haysanaa okay حاجه اللي كنت بقول عبد الله والله مساعدك مساعدك معمور مساعدك معمور ومساعدك اكبر من اول مساعدك معمور بان كنتسي ماشي انا لو دلي اوكي المساعد معمور كنت كان كده ماي حبينا اتسي سنين كان مساعدك ما كنت كتاني انك زمان ها مساعدك كنت كتاني كان كبريس انا اسغا بدل هين كنت كتاني لا بينا هين كان دلي كنت كتاني مساعد habeenkii lagu dugo oo la dilaya may banaankan ku sugnay banaan okay adiga marka xagee lagu dilay abdallah masaaki midaysan dilay banaankiisa banaankiisa salaad isha marka laga soo baxay inta ku dhacay abdallah maxamed ya inta xabo ku dhacay laba xabo dambi inaan galay waa cadahay oon xalaal ahayn oo nijaas xaraan ah dawladda Puntland ayada gacanteeda ku jiraan wax walba iyada awoodaada anigu dalabkeegi sida iyadu jeceshay qofka dambi galay dambigiisa lagu fuliyo kii aan dambi galin dambigiisa la daayo asna baan ka